badankooda laakiin arrimahan yar yar ee technicality-ga hadda wasiir maareey uu ka hadlay oo ah bilmetal kalsoonisiinta dawlad goboleedyada waa run dawlad goboleedyadu mar walba waxay u baahan yihiin kalsoonida shacabka ama ay matalaan ama dawladda dhexe ama Soomaalida oo dhanba in la wada socdo waa loo baahan yahay laakiin mar walba haddii dib loo eego nidaamka dawlad goboleedyadu ku dhismeen ama dawladaha federaalka ku dhismeen Somaliland haddii laga soo bilaabo procedure-ka in la isdoorto hadduu yimid laakiin waxaan filayaa markii la bilaabay 90 iyo xoogaagii sida kuwan oo kale u soo dhismay markii la dhismayay dagaal baa ka socday magaalada reeraha qabaa'ilada dhexdooda dagaal ka socday sidoo kale maamul kasta oo dhismaya marka maamul kasta oo dhismaya haddaad hadda ku cabirto ama South West ama Jubaland aad ku cabirto Somaliland aad ku cabirto meesha ay hadda marayaan markii Somaliland maraysay sidan oo kale iyo si la mid ah yahay marka waa in waa wax koraya koriinkana loo ogolaado aan la oranin maxay sida Somaliland ama sida maartay Puntland oo kale ay isu dooran waayeen oo doorasho aadi waayeen immediate stage taa ma la filayo laakiin waxaan qabaa procedure fiican ku socotaa oo gaarsiinaya halkaas mar walba cabasho ma laga saari karaa meesha mar walba waxaan hoosta ka xariiqaya cabasho iyo tabasho waa jiraysa taasina waxay u baahan tahay level sayleeda lagu xallin karo arrintaas marka taas intaas aan oran lahaa midaynta dadka Soomaaliyeed ay timid dadka Soomaaliyeed inay ku midaysan yihiin inay dawlad federaal leeyihiin isla mar ahaantaana madaxweyne ay leeyihiin tasamaara madaxweynuhu qabiilku raba ka yimaado madaxweynuhu marka la doorto waa madaxweyne qaranka waana lagu kalsoon yahay inuu madaxweyne qaranka yahay marka uma malaynayo in loo fasirayo inaanu jirin madaxweyne Soomaali u dhaxeeyo oo lagu kala qaybsan yahay ma jira hadda waa la isla ogol yahay madaxweyne xasan sheekh inuu yahay madaxweyne ma aniga aragtideena waa inagu aragtideena adiga laftirkaaga oo shalay gudoomiyaha gobolkaaga ku magacaabay marka waa madaxweyne qaranka inuu yahay waa isla ogol yahay tabashooyinka iyo dhaliilaha iyo isqabashada marka qofka shakhsiga ah waa waxyaabaha problemka Soomaalida haysta personal conflict here oo yimid in national law address garay marka gudoomiye adigoo for all respect in madaxweynuhu yahay madaxweynaha qaranka oo dadka u dhaxeeyay annaga oo kalsoonaa beelahan hadii la yiraahdo iga xiga laakiin aniga waxaan ogahay in madaxweynaha yahay oo ku kalsoonay oo yahay madaxweynaha Soomaaliyeed adeegana taayna ilo ogolaato laga maarmaan inta marka laga tago caasimada waa lagu midaysan yahay caasimada Soomaaliya in ta xamar waa lagu midaysan yahay laakiin waxay u baahan tahay in la qeexo caasimadu statuska ay lahaan lahayd in la qeexo waa laga maarmaan oo dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan oo ay noqoto caasimad dadka Soomaaliyeed ay maartay wada maamulaan oo wada dheersadaan oo ka wada shaqeystaan oo danaheeda loo sameeyo example marka maan ku dhahdaa gudoomiyaha gobolka iyo maayarka wada 17 degmo ama 16 degmo ka koobnaa 16 degmo yaa maamulay adee marka gubernatoriyaha that means waa inay noqoto caasimad Soomaaliyeed oo Soomaaliya ay wada leedahay that means mushkiladaasi ma aha mushkilad banaadir kaliya u taala marka Kismaayo ka jiri kartaa garowe ka jiri kartaa baydhabo ka jiri kartaa gaalkacyo ka jiri kartaa banweyn ka jiri kartaa marka waxyaabaha yar yar ka oo mushkiladaha oo dabeecadu abuurtay inaan si national oo dabaqin laakiin aan sideeda iyadoo aan halkii ku raadin arrinta kale oo ku saabsan calanka Kismaayo lagu gubay waa been waxa ka jira dadka Soomaaliyeed ee Kismaayo jooga calan ma gubin mana gubayaan weligood ma gubin waa dadka calanka Soomaaliyeed keenay waana dadkii goboligood buu taagnaa calan Soomaaliyeed ilaalintiisa u taagnaa from the beginning hadda historiga Soomaalida aad fiirisana Soomaalinimadu waa meesha ka soo bilaabatay dadka Kismaayo jooga waa dadkii ka soo jeeda marka taa horta in la wada ogaado waa laga maarmaan waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed boqorad Ingiriis iyo dad kale maamulo uma baahan dadka inaga maamulayna waana inaan isu ogolaano inaan maamulo laakiin nidaam cadaalad oo dadku ay u wada bisil yihiin arrintu uu ka hadlay saaxiibka goodax oo ahayd ciidamada dariska ay yimid Soomaaliya yimid ciidamadaasi okay kuwa beledweyne yimid kuwa Itoobiya yimid kuwa Djibouti baa yimid kuwa kala Kismaayo yimid kuwa kala Baydhabo yimid waxaan qabaa waa dadaaleen intaasiba waa hiil because beledweyne hadayna iman lahayn ma la joogi lahaa lama joogi lahayn gacan bay geysteen gacanta ay geysteen inaga la rabay inaan ku darno inta ka dhiman oo aan socono inaga la inaga rabay inta maxaan ku idhaahdaa beelbeel isugu mashquulay xabadaha inaga dadka hiiraan jooga ayaga isku ridayaan haday shabaab ku ridayaan shabaab meesha ma joogeen xaqiiqda aan wajahan
waxa weeye marka innaga aan aadno midda inoo taallo oo hawsheena wadamada dariska ahi waxa weeye ammaan bay mudan yihiin at least hadday waraag kaalay oo meeshii imaado maxaan ku idhahdaa wixiina abaabusho weliba dhaqaalaan ciidankii baan idinla hagaajinayna idinla tababareen waan ognahay inay intaasoo difcadood ka soo saareen beledweyne oo ay ku tababareen dabcan si qaliil baa hubka la isugula laabtay iyo dagaalka la isugula laabtay maxaan ku idhaha taas innaga marka weaknesskeenna waayo codaynta baarlamaanka iyo xildhibaanada taas waxa waaye xilligeedaan ka hadli doonaa ama muuqaalada cid waliba waa haysaa laakiin aniga maxaan ku idhaahdaa baarlamaanka marka uu si nidaama intuu u fadhiisto uu si nidaama u codeeyo uu si nidaama hawshiisa uguta waa respect garaynaya waana ixtiraamaya laakiin marka koox yare ay si fawda u samayso ma noqonayso in mid laisku ixtiraamo igaadi boqol iyo labaatan muuqaalka waa laaya media waxaan ka codsanayaa inay muuqaalada rasmiga ee dhabta ee practice-ka guddoomiyaha 9 baan soo fadhiistay 9kii subaxnimo kooro ma jiro 10kii kooro ma jiro 11kii kooro ma jiro shirkana waa xiray oo albaabka uu ka baxay markaati muuqaalkana waa lahaaya meel kasta ku jirta markii dambe la tiriyo 150 buu kooro ku fadhiyo 120 baa ku fadhiyaan kooro ma jiro kala taga markii dambe adiga tiimku mid ah ku khasabtan inay codeeyaan taas ma waa la respect gareyn kara at least waxa la jiri marka dambana aniga tiimku codeeyo kuma jirin laakiin waxa ku jirta in la yidhi xildhibaanada banaanka jooga codkaa lagu tirinaya markhaatiyaa ka tihin adigana qof walba waa daawado idinkeedin ka mid waxa weeye haddaan kooran jirin oo guddoomiyihii ku dhawaaqay 3 goor inuu shirku xiran yahay saydan baarlamaanka usoo joogaa ma jirto sax adiga taa marka laga tago xildhibaanada loo yeedhay waxaan rabaa inay anshax xumo tahay iyo inay fiicnaan tahay iyo inay wanaag tahay waa meesheeda qofku constituency ka soo jeeda waa dad Soomaaliyeed xildhibaanaan nahay laakiin deegaanada laga wada yimi deegaanadu consultation waa u yeeri karaan waa laga yaabaa halkii iyo maslaxadii iyo war waxaad khalad baad samayseen oo kaadiye iyo halka khalad baa ka dhacay oo kaadiye iyo cabashada ay dawladda dhexe ka qabaan hatta dadkii u soo gudbin lahaayeen soo qaadi lahaayeen dawladda dhexe bridge-kii isku xidhay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada waxay dhibaanada waa loo yeeri karaa xaqaana loo leeyahay waxaana qabaa inay wanaag tahay marka laga tago ma aha markii koowaad waa la bilaabay waxaan ognahay in xildhibaano fara badan inta tageen xataa baarlamaanku bilow ama maalmo u xidhnaa ويجب واحد ما عمرك كوادا يناهين مركا مامل كتب حدوه يا حلبانو ديجان كيسو كذا وحان إلتها إنه وناك تهي أين حلبانو نقولنا يعني بريتش كحلك كيني لها ما دام هو كونفليكت تاجي وما